waxgaradka dhalinyarada aqoon-yahanada beesha reer Cali Rooble ayaa ka hor yimid shakhsiyaad sheegay in magaca beesha ay ku matalayaan shir magaalada Cadaado uga socda beelo ka mid ah beesha Bah Abgaal ee reer Xaaji Saleemaan halkaasi oo ay doonayaan in ay ku doortaan nabadoon cusub. Shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee beesha laguna qabtay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray bayaan ku saabsan diidmadooda ku aadan in aysan jirin cid ku matasha shirka ka socda magaalada Cadaado. Ugu horeyn waxaa shirka daafuray nabadoon Cabdullaahi Diirshe Ilka Case oo ah nabadoonka ku meel gaarka ah ee beesha reer Cali Rooble. dadkan meesha isugu yimid ujeedadu waxay tahay inay fariin diraan. fariinta ay dirayaan waxay ku socotaa walaalaheena Bah Abgaal oo ku shiraya magaalada Cadaado. dadka shiraya waxaa ka mid ah niman Cali Rooble oo sheegtay inay masalaan beesha Cali Rooble. dadkan fariinta ay dirayaan waxay tahay nimankaasi inaysan Cali Rooble masalin Cali Rooble uu yahay kuwan meesha joogay inta boqolyaalka ah maqaro danahooda baanta halkan ku gudanaysa. Ma jirto ayay yiraahdeen cid beesha ku casuuntay shirka iyagoo tilmaamay in aan lagu kalsoomin shakhsiyaadka la sheegay in ay ku socdaan magaca beesha. qaar ka mid ah waxgaradka aqoon-yahanada ganacsatada iyo dhalinyarada beesha oo ka hadlay kulanka ayaa ku nuxnuxsaday in aysan qusaynin shirka ka socda magaalada Cadaado oo aysan jirin cid ku matasha shirkaasina uu yahay mid aan loo dhamayn. aniga waxaan ahay nabadoon Cali Rooble oo loo yaqaano Cali Jiis ka mid ah oo Sharmaarke Cali nabadoonkooda dadka soo aaday Cadaado oo tolka u sheegay oo yiri nabadoon hebelaan ahay kanaan ahay ma ahan yay been idin sheegin nabad shacabka jooga xamar oo Cali Rooble nabadoonada uu aaminsan yahay waaya inta idin la hadashay marka yaan lagu kadsoomin ayaga iskooda u baxay ayaga Cali Rooble heshiis u diiday marka waxaan idin ogeysiinaynaa nimanka inay Cali Rooble mas'uulna ka ahayn waxna ka ahayn. waxaan halkan ka diraa fariin ku socota beelweynta Bah Abgaal oo ku shiraysa Cadaado. waxaan u sheegaa fariintaas aniga oo ku hadlaya tiitolka ama nabadoonnimada reer Cali Rooble ama beesha aan ka soo jeedo waa reer Rooble Cagdheer. waxaan u sheegaa shirkaas iyo hawshaas ka socota meeshaas Cali Rooble xamar cid ku matasha inaysan jirin aynan wax kala socon aynan dirsan aysan noo dhihin aynan una dirsan oo aynan ogeyn. waxaan caddaynayaa inay nimankaas meesha shirka aaday ee sheegtay magacayaga inayna matalaan inaysan matalin ee ayagu go'aan ay wataan iyo hawl ay wataan ay tahay. halkan waxaanu maanta isugu nimid inaanu ku gudbino fariin ku saabsan ra'yigeena taasoon u marinayno nimanka beelweynta Bah Abgaal oo shirku Cadaado uga socdo in aysan beesha reer Cali Rooble shirkaas laga qayb gelin oo xamar uusan qusaynin. haddii ay jirto cid been abuura oo Cali Rooble xamar ka socota waxaanu leenahay yaan lagu kadsoomin nala kuma marti qaadin war uma hayno naguma matalaan ma ayna dirsan matalaad horena nagama haysan mid hadda ay nagu wargeliyeen kuma aana dirsan. maanta iskulankeena ama isku imaasheen wuxuu daaran yahay tabasho iyo maaragtay tala soo jeedin inta muhiimaduna waxa waaye ayadoo 2023 la maraayo oo adduunku ilbaxnimo iyo mataqaana midnimo iyo laga shaqeynayo in la kala tago oo dad gaar ah ay tuurta saartaan sharciyadii iyo wixii lagu mideysnaa waxay taas muujinaysaa dib u dhac iyo maaragtay horumar la'aan. marka waxaan leenahay shirkaas lagu qabtay Cadaado markii laga hadlaayo gaar ahaan markaan nahay beesha reer Cali Rooble raggaas odayaasha ah ee meesha tagay nama matalaan naguna matalaan aragtidaas ay mataqaana wataan. reer Cali Rooble 3 sano iyo 8 bilood ma wada shaqayn waa kala burbureen qoon u tagaa ma jiro. nimankaas odayaasha nama matalaan ayaguna way is ogyihiin inayna matalin waa is ogyihiin in reer Cali Rooble kala burburay way ogyihiin
hadday yiraahdeen raacal rooblaan ka soconnaa oo odayaal ka nahay waa been ilaahay waa baqa hanagu been abuuranina gudoomiyaha guud beesha bah abgaal ee reer xaaji Saleemaan Cabdi Axmed Gelle oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu cambaareynayo sida loo wajahay shirka ka socda magaalada Cadaado maadaama beeshu aysan u dhameen Cadaado ku shiraya oo shirka ku qabtay waxa la sheegayo intaasoo nabadoon ka hadleen horta haday jiraan waa waxaan cambaareynayno oo aanan raalli ka ahayn in dadku sidaa isu dirqiyo qarnigan la joogo oo meel walba touch ay tahay oo ninku hadduu cididiisa mobilka saaro waxa ku jira uu ogaanayo wax qarsoomaya ma jiraan marka inay xagala geel ka dhigaan oo ay golonka ku qaataan oo inta cabashada ay sheegaysa ay xaqiiq ka dhigaan oo kala cararaan ayagoon wargelin waa wax laga xumaado way shirkan oo socday maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa laga soo saaray war murtiyeed ku saabsan qodobadii ka soo baxay waxaana warbaahinta uu akhriyay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Dalmar beeshu waxay cadaynaysaa in beelweynta bahabgaal oo annagu aan ka mid nahay aysan u dhammayn shirka ka soconaya degmada Cadaado 2 beeshu waxay ku baaqaysaa in aan laga shaqaynin burbur iyo dib u dhac ku yimaada beelweynta bahabgaal 3 beeshu waxay ku baaqaysaa dib u heshiisiin loo dhan yahay iyo in laga shaqeeyo turxaan bixinta khilaafaadka jira ka hor intaan la qabanin shirweyne guud oo taabanaya masiirka ummadda beesha bahabgaal qodobka 4 beeshu waxay cadaynaysaa ama ay ku baaqaysaa in loo dhagan nuglaado baaqyada iyo tala soo jeedinta wanaagsan ee ka soo baxaya beesha iyo cuqaasha reer Cali Rooble si loo gaaro israaca iyo midnimada aan tiigsanayno wabillahi tawfiiq ugu dambeyn shirka ayaa waxaa soo xiray injineer Daahir Aadan suuragal ma ahan 4 dhardhaarood ninka hadda walaalka igu horreeyay wuxuu 4 dhardhaarood weeyay laba ka mid ah wax dhista suuragal ma aha saddexina wax dhista suuragal ma aha hal qof nagama go hal qof oo kaligiisa nagama qo qabiila laga hadlaya hal qof oo kaligiisa nagama go aqliga bini'aadamku ma sheegayo saacada aan joognana waa saacadii dad badan oo intaan ka badan la raadi lahaa oo la iskaashan lahaa oo horumar iyo wax ballaaran oo mataqaana lagu fikri lahaa wanaag ah Zikri Ahmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho